Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaami dhammaantiina meel walbo aad dunida ka joogtaan. Magacaygu waa Nurdiin. Haddaba maanta videogan waxaan kugu soo gudbin doonaa waxyaabo kaa hor istaagan inaad horumar gaarto, inaad riyooyinkaaga ka rumeyso, ama inaad ahdaaftaada nolosha aad meel sare gaarsiiso. Waxyaabaha kaa hor istaagan ayaan maanta videogan kugu soo gudbin doonaa. Horta marka hore ma jirto wax kaa hor istaagan waxyaabaha ahdaaftaada. Kaliya waxaa jiraan waxyaabo yar ah oo aad sameynayso kuwaasi oo ku diidan inaad horumar gaarto. Horumar haddii aad doonayso inaad gaarto, cid kaa hor istaagan ama qof kaa hor istaagan ma jirto. Kaliya waxaa jiraan waxyaabo ku diidan inaad horumarkaas gaarto. Haddaba kusoo dhawaada videoga. Haddaba cadowga koowaad ee ku diidan inaad horumar gaarto waxaa ka mid ah caajiska. Waan ognahay dhammaanteen in caajisku uu yahay wax aad iyo aad u xun. Saas oo ay tahay haddana waanu ku dhaqannaa. Haddii aan wax sameyno waxaanu dhahaynaa waan ka caajisanahay haddeertaan ma sameyn karo, hadda waqti uma hayo, waan caajisanahay, beri ayaan sameynayaa. Waa waxyaabahaas oo kale. Caajiskana ma aha wax fiican. Haddii aad doonayso inaad horumar gaarto ama aad guul gaarto ama meel aad tiigsanayso, waxaa fiican inaad iska ilaaliso caajiska. Mana fiican caajiska. Waa inaad iska joojisaa caajiska. Qodobka labaad, cabsida. Cabsida waynu ognahay dhammaanteena inaynu ku dhaqanno ama aynu ku dhaqaaqno. Cabsidu ma aha wax fiican. Cabsidu waxaa ka mid ah in wax aad sameynayso ama hawl aad sameynayso inaad ka cabsato oo aad isdhahdo dadka dhow maxay ku arki karaan, dadka dhow sidee ku maleysan karaan, dadka dhow maxay ka aamin karaan. Haddaba haddii aad doonayso inaad horumar gaarto ama aad riyooyinkaaga ka rumeyso, ha isku xirin dadka waxay kaa aaminayaan ama waxay kaa filanayaan, taas ayaga gaar u tahay. Kaliya adiga waxa aad doonayso inaad horumar ka gaarto ku dadaal inaad sameyso, juhdi geli, waqti geli. Sidaas waxaad ku noqon kartaa qof noloshiisa guul ka gaaray. Iska dhaaf cabsida ka imaanayso dadka xaggooda. Hana ka cabsanin wax aad sameynayso. Hana isdhihin dadka dhow sidee ku maleynayaan, sidee ka aamini doonaan, waxay ku dhihi doonaan. Waa inaad iska dhaaftaa wax walbo aad sameynayso inaad sameysaa haddii adiga aad jeceshahay. Qodobka saddexaad ee ku diidan inaad horumar gaarto waa xaasidnimo. Waynu ognahay dhammaanteena xaasidnimada in ay diinta ka hadashay, sidoo kale aysan u fiicnin qofka nafsad ahaantiisa. Xaasidnimadu waa shay aad iyo aad u xun, waa shay aan fiicnayn. Qof walaalka oo aad xaasidaa waxaad ogaataa adiga inaadan horumar gaaraynin. Qof walaalkaaga oo kaa filayo inaad wax u tari doonto ama aad wax u qaban doonto haddii aad xaasido, ogow asiga waxaad u dhimayso ma laha ama waxaad asiga ka jarayso ma laha. Nafsadaada unbaad wax ka jaraysaa, nafsadaada unbaad haligaysaa. Xaasidnimadana adiga ayay kugu soo noqonaysaa. Mana fiicno xaasidnimada. Waa inaad iska joojisaa xaasidnimada. Ma aha qofkaas horumarka gaaray aad ka xumaanayso inuu magacaaga ama adiga wax kugu saabsan uu horumar ku gaaray ma aha. Asiga dadaalkiisa iyo juhdigiisa ayuu horumar ku gaaray. Adigana waad ku gaari kartaa. Allah subxaanahu wa tacaala bari waad gaari doontaa horumarka asiga uu gaaray. Ha xaasidin qof walaalkaaga. Mana fiicno xaasidnimada. Haddaba waxaan u maleynayaa inaad ka faa'iiday videogan. Saddexdaas qodob oo aadka u muhiimsan ayaan jeclaysay inaan idinla wadaago. Haddaba sidaan filayo inaad ka faa'iideen ayaan u maleynayaa saddexdan qodob ka mid ah. Haddaba intaanan videogan ka bixin, haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, videogan like saar, comment-na ka soo bixi. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxa inoo balan ah videoga ku xigo anigoo caafimaad qaba iyo adigoo caafimaad qaba. Mahadsanid.